waxaan arkay gabar kale boorsadeeda furaysa waliba si live ah gacanta inta ula gasho iska maamulanaysa alla qofka qalbi adag ka indha adag waligay ma arkin gabadhan boorsadii ayay gacanta gashanaysaa waxayna ka soo baxsanaysaa lacagtii ku jirtay oo idin mar kaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داوديا ميل walba oo aad dunida daafeeda naga daawanaysan halkaana waa barta aan ku leenahay YouTube keena Family Lifestyle fadlan haddaad nagu cusub tahay hadda nagu soo bir oo channelka subscribe ma saar haddii aad hore nooga mid ahaydna muuqaalka la garay oo share garay oo asxaabtada la wadaag waa markii ugu horeysay ee aan arko gabar kale boorsadeeda inta furta waliba ka xareysa lacagta ku jirto jeeb siibeysa جيبسي بعد ما قشة وحكوا صنع ملح عريقة إلى سحريحة أو بورصة قبل وضعته أنت قعدت لقى لعقت كنت تلاقي صوب حسناي أم بعدي قص كسر عدو على يراها أو جيب كنت تلاقي أما تلفون أو لقى جيبسي بايو واحد قبصان الساعة جيبك قبل هو قبصة بورصة ضد لكن ما أنت هوش ويكدو انتهي وحن أركي قبر كلا بورصة هذا فريسة waliba si live ah gacanta inta ula gasho iska maamulanaysa alla qofka qalbi adag ka indha adag waligay ma arkin gabadhan boorsadii ayay gacanta gashanaysaa waxayna ka soo baxsanaysaa lacagtii ku jirtay oo idin mar kaliya hadda meesha ay ku xadayso ma ahan meel cariiri ah ma meel jaam ah ee waxa ay joogtaa mid kamid ah dukaamada xaafadda Islii ee lagu iibiyo baatiyada ee dharka dumarka qaaska ah loogu gado haddaba dukaankii ayay soo galaysaa waxayna iska dhigaysaa qof alaabta gadanaya gacantana waxay u deynaysaa gabadhi kale ee garabkeeda taagneed boorso dheer ayay iska wadataa gabadhan dhar ayay iska fiirsanaysaa gacanta ayay la gelaysaa boorsadii ayay furanaysaa gacanta ayay gelinaysaa lacagtii ku jirta ayay qaadanaysaa kadib waxay iibsanaysaa qaar kamid ah alaabihii ay gacanta ku haysay wayna cararaysaa bal muuqaalka aan daawano qaabka la yaab kale ee gabadha wax u xadayso bal muuqaalka aan daawano on reaction aan ka bixino sida idin muuqato meesha waxa taagan waa saddex hablood oo macaamil ah mid kamid ah waa gabadha tuugada ah xijaabka buluuga wadata hal gacan ayaan ka aragnaa oo gacanta kaleeto waxa ay ku wadataa hawsha gabadha kale ay hoosta ugu jirtaa sidaad aragtaan xijaab buluugta waa wax xadayso bal fiiriyo muuqaalka markaan idin soo dhaweeyay bal eega gacanna waxay ku maamulaysaa gabadha kala boorsadeeda hadda boorsadii ayay furtay dib ayayna u baxday waxay fiirinaysaa marka boorsadii miyay ku furantay mase weli may furmin haddana waxay bilowday maamulkii ay ku maamuleysay boorsadii gabadha kale gudaheedii waxayna soo baxsanaysaa lacagtii ku jirtay gacantan kale tan waxay ku boojeynaysaa ama ay ku mashquulinaysaa qofka alaabta iibsanaya qofka customka ah ma ahan waxay mashquulinaysaa waa qofka dukaanka leh ee la hadlaysaa gacantaana howl ay ku wadataa hadda waxay la baxaysaa lacagtii sida idin muuqato ee gabadha kale waa iska qabaarmo wax ay la socoto xijaab maaruunka ma lahan lacagtii waa ay la baxday wayna sikatay hadda waxay bilaabaysaa marka qaabkii lacagta ay u qarsan lahayd waxay isku dayaysaa gacan kaliya inay inta ku gashato way u naqaweyday haddana waxay bilowday bal labadii gacmood lacagtii inay geliso diraca hoostiisa gabdhaha Soomaaliyeed inta badan halkan ayay wax geliyaan diraca way gelisay haddana waxay isku dayaysaa marka dharkii ay maanta dhan gurgurinaysay inay iibsato waayo lacag badan maahan alaabta iibsanayso qiyaastii waa $5 lacagta ay qaadatayna waa $200 bal qiyaas lacag 20,000 oo Kenya ah ayay qaadatay hadda $5 ayayna wax ku iibsatay hadda waxa loo celiyay sarifkeedii $10 ay dhiibtay $5 ayaa loo celiyay kun ay dhiibtay $500 loo celiyay waxay dharaysaa qaabka alaabta lagu dhiibi lahaa jaawa loo dhiibay waa ina carartay haddaba gabadhan iska qabaar mooga ah ee boorsadeeda 20,000 ay wadatay ay ku soo baxday inay ku adeegatana halkaas ay ku weeday muuqaalka runtii mar allaala markii arko waxaan jeclaystay inaan halkaan idin kula soo share gareeyo oo aan halkaan idin kula wadaago waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed markii aad u soo bixaysiin suuqa ee aad adeeg soo doonaysiin fadlan boorsadiina hubiya inay idin safe garaysan tahay amba idin xiran tahay in kale qof kasta ha aaminina boorsadan dheer ee la qaadanayo ee jilbaha joogtana
waxaad ogaataa inta badan inay tahay mid dayacaad ah waxa kugu jirana dhammaan lagagala bixi karo hadday tahay sharciyadaada hadday tahay lacagahaagii hadday tahay dokumentiya gaar ah kugu jiro marka waxaan leenahay gabadhaas ilaahay ha u fududeeyo بدل غير قبل الله سيو أو ملك له إلهي يسفلن إلهي كاير ساقو وحن لها مركب مقال كان صوبت يوكلفتين أن هالك أدي كله وده نوحي هاي إن الدداشان مركب سوق صوب حساب وتكون محسن هاي دا وشذا مقال كان فضلا هذا نروح صوب هاي ما أنت نقول صوبير أو جنا كسبسكرايب نوصار مقال كان الله جري أو شير جري سيوبا أنتم بدل برشة صومال يوجا مقال كان حين تقول ميدانا نبتقول qiimaha leh waxaan idinku bishaareynaa in uu soo baxay productiga Elias Beauty Product isla markaana aad ka heli karto isla company-ga Elias Beauty Product waxaanu isugu jiraa qaybo kala duwan ugu horeyn kareenkan hadda aad arkaysaan waxa loogu talagalay wajiga hadii wajiga aad badmadow ka leedahay hadii finan ama nabro wajiga aad ka leedahay hadii wajigaagu uu gududanaya intaba waa uu ka caawinaya oo waxa laga sameeyay fiitamiino kala duwan sidoo kale isla kareenkan kale laftigiisa isaguna waa jirka ama boodiga qofba sidoo uu yaqaano jirka ayuu wuxuu kaaga dhigayaa smooth ama uu jilcinayaa wax markaasi ad adeeg ama kharfad ama markii dhar aad dhaqdo ama gacmaha kale saabuun ama waxyaabo badan aad ku dhaqdo aad marsato gacmaha wuxuu kaaga dhigayaa softy dhamaantood waxaad ka heli kartaan guud ahaan social media ama baraha bulshada haday ahaan lahaayeen Instagram-ka Facebook-ga TikTok-ga iyo waliba aywaano kala duwan sida Snapchat-ka oo gabi ahaantoodba aanu idin soo qori doono qaybaha online-ka ayaad sidoo kale ku iibsan kartaa meel walba oo daafaha dunida ka joogto waa lagu keenayaa guud ahaan Soomaaliya waxa ka furan sidoo kale dukaamo kale oo company-ga Elias Beauty Product in kasto xaruntiisa ugu weyn ay tahay magaalada Nairobi meel kasto aad joogto nagala soo xiriir ciwaanada iyo lambarada shaashada ku qoran si aan ku soo gaarsiino